السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليد قبل كسر دافعين عالم كتشتا وسلامته ولا الكلمة جنك هيك دامر سنة ومر في شركة سلوم مقال عصب مات المقال بين وضع كينج سيكي أودي كينج سيكي مقراس أيوة عباشة سعودي بتي أيام مات المقال كيسا كال دونا دوي هذا أو مارتي ليسوا عوية المقال كاس أين جود جل دونا دوي هذا بليز جنك هتدخل عصب سبسكرايب تساعد بلا كنا فرم مقال كنا لايك تيسار أدي دون ما ستاي أدي دون ما ستاي وحن كلنا هاي مرور با وان ما ستاي جنك كسولو هتدخل عصب تاي سوقل كبار مع السوقل مرة بس كسوقل ما كلنا اوكي جايز مقال قاعد ينوب بس سعوز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونبض قبنا سيكي وهذا اسكو سو نقد وناكسن او ولي عيسى waxaan ku rajeenayaa adigu caafimaad qaba ina soo laabatay sida anigu qosliya oo caafimaad qaba saakay aan hortaada ugu soo laabto annaguna aad iyo aad baan caafimaad qabnaa laakiin ka fiiba iska cabisay laakiin waa soomnahay okay qaxwadana ka wata ilaahay yaa maad iska leh noo afgooyo saaxiibo qaxwada ay bartay tag aan ba ku noqdayba subaxdii markaa caaw ورني ويباتيز كسو خيرك اسكسو ور خيرك اسكسو خيرك توقع عش اسكقاو يا اسكسو انكسو انا فرال هاي نو مارتي واجبين وسنتي ادنا دي ناسكسو تو مهم وايو سنه عمل شقيسن اي ما توقع عش عمل كاسغاستا كفل بدي marka اسكسو ما idin kale leh energy mirana noqda afgooyina uma celiyo TK oo garabkaaga baahan adigoo CK family اوكي سيكي بقرب بان قرب نوغ بانت وحي ان كا عاوي كرنا اي aragtideeda garabka maanta aniga aan kaaga baahanahay muxuu yahay anigoo siikii ah ayaa garabkaaga baahan sida ciwaanka baad ku soo aragtay adduunkan aynu saaranahay CK family marxaladihiisa horta way kala duwan yihiin maanta reality oo waqtigan maaragtay adduunyada lagu nool yahay qofba maaragtay maalinba adduunyadu waa nooc waqtigu kol uu isbedeli kara kol adigu maartay jimiga ku saari kara kol oo ku dalay sarin kara marka taa ogaada ayaan siikiya ee kursigan ku fadhiya ninka youtuber waaye dadka qaar lacag u tugnayaan baan idin mashiigayo adiga lacag kugu tuminaadna waa runo siikiyo ina maartay dhibriqtay ayaa kugu tumina brother ma de wax kala la iskishi wax anagu alaabta ku noor gushin xaajiga youtuberada kol ku sidii iyagas wax lagu tumay haba yaraadaane waxa laga yaabaa ayadoo meel dheer aadin isla maalinta ku xigtaba in down aan ugu dhulka imaado way dhici kartaa taasi reality way dhici kartaa boqolkiiba 9 waan dhacdaa adduunyadan haddaad maanta adigu haysatid birito oo walaalka haysid biritole iga raalaada sorry biritole way kartaa adduunyada maanta waxaad haysid marka khayr ku shaqayso waxaad haysatid sadaqo la bax aan ku dhawaado macnaha nolosha ayaa marxaladaas ku dhisanba haddii shalay aad wax haysatid maanta waxaa laga yaabaa inaad waxba haysan maanta haddii aad wax haysatid oo aad maanta wax tahay berito waxaa laga yaabaa inaadan waxba ahayn run ahaanta that's sweet berito la inaad waxba ahaan kuna way dhici kartaa yar oo xanuun badan wiil yar ayaa jiro oo wax bartay run ahaantii diyaarna u ah hadda in jaamacad uu bilaabo oo heer jaamacad maraya intaas oo wax soo baranayay garabkiisa waxa taagnaa macnaha intaas oo wax soo baranayay xiliyadiisa kala duwanaa waxbarasho ilaa heer jaamacad garabkiisa hal qof ayuu ilaahay siiyay oo u joogta waana hooyadiis oo soo korsatay run ahaantii waxa aynu ku soo korisay nolol xanuun badan ayada ayaa xoog u ahayd suuqaasi wax isaga warwareejisaa ee ku soo korisay adduunyadan horteen ku nool maarta adduunyadan horteen ku nool maanta dad u quraacanayso aad saddexda waqtiyeeliso si wanaagsan aad nooshahay aad meedhanaysid dad aan inta haysan ba jirta oo maartay hamilo oo maartay dadaale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay sugaato meel kasta oo hadda maanta adigu haysto walaalada oo baahan oo haysan ba jira qaar aan haysan ayaa jira marka taa ogaada anigu wuxuu ku soo koray sidaas rumaanti ma aan qof maanta hanti lagu ogyahay ama wax haysta isaga qodiisa ayaa xilligan la taagan yahay naftiisa wuxuu ku maareynaya asoo wax baranaya xilliyada qaarna inuu meelaha ka soo tuurto معناها قف أيوب بجاج ودي سو نرشه بدل
qofkan bajaaj buu maarata qof u wadi jiray suu noloshiisa ugu kaafiyo iyo hooyadii iyo waxa uga caawiyo adiga haddii aad qurbo ku kortay oo qurbo aad ku dhalatay oo nolol raaxale aad kusoo kortay ma ogaan kartid maanta markii uu kaa horta qurbahan la sheegayaba ayaaba noloshiisu maaragtay qaar nolosha ka dhacay oo maaragtay aan waxba aysan ba jirin ya qurbaha meel kasta way ka jirtaa mid waxaysi midaan waxaysin markaa qurba qudhiisa qaar badta ku dayacan oo maaragtay waxba aysan oo ku gaajoonay inkastoo aanay badankaa dhicin boqolkiiba 10 aan odhan karo amba 20 baan odhan karo sheekeeyo qof hami leh ee weliba wax baranaya ee hami leh inuu waxbarashadiisa sii wado ayadoon wax kale ayan ka hor istaagin uusan niyad jabin waxbarashadana ku fiican markastana number 1 ah hamigii uu lahaa heer jaamacadeed inuu gaarana ee ka hor istaagtay maal adduunya run ahaantii xanuunka iyo ciilka qofkaas uu dareemi karo adiga haddii daawanay waa dareemi karaa brother qof maaragtay adduunyo oo maaragtay maanta waxaanu haysan oo soo dadaashay hooyada maaragtay waxaa yara suuqa la soo martay kugu soo dadaashay adiguna dadaashay maalinka maaragtay kaalinta koowaad aad soo gelisay qisada waa dareemi kartaa adigu qudhaada waa dareemi kartaa oo walaalkaa oo maaragtay dhibaataysan waa dareemi kartaa qof wax bartay oo waxbarashada ku fiican oo always number 1 ah heer jaamacadna tiigsanaya qofkaas heer jaamacad markii uu yimaado oo intaas lagu soo tiiriyo tacabeelayay oo intaas naftirkeeda xanuun ku imaaday oo haddii la rabo mararka qaar xitaa uusan hayninba wuxuu mashaharka iskuulkaas isaga bixinayay maanta rajadiisa iyo hedidiisa heer jaamacad aheyd waa dareemi kartaan qof markii uu wax soo baranayay asaga naftirka waa dareemi karnaa brother hawsha ka hadlayso oo maaragtay aad shaqadeeda hayso oran oo saacaan ku leeyahay ku soco abaartina shaqeynaya noloshiisa qaybna shaqeynaya qaybna maaragtay wax baranaya macnaha waxaan ka wadaa gelina wax baranaya gelina shaqo soo tuuranayay siduu u kabo waxbarashada lacagta uu ku dhigan lahay markaas maanta markii heer jaamacad ay soo gaartay xoogaha baasha way kululaatay oo shalay markuu isaga iskaafinayay uu waqtina shaqeynaya waqtina uu aadaya maanta xoogaha way ka weyn tahay hamina wuu leeyahay hamiga wuxuu leeyahay ay haystaan caruurta waalidkood wax haysta oo markay wax bartaan jaamacado loogu geeyo ama loogu diro ama dalka ay ka bartaan hamigaasoo kale uu leeyahay uu run ahaantii ii sheegay anigoo CK family wiilkaas wuxuu iga soo codsaday uu yiri waxaan u baahanahay walaalkiiyo aniga hadeertaan muuqayga iyo magacayga iyo waxaas idinlama wadaagi karo CK walaalkii waxaan kaaga baahanahay in adiga iyo asxaabtaadaba aad igu garab istaagtaan hamigayga waxbarasho inaan sii wato ilaahay kugu dhaarshay ka soo qaad naftaada adiga oo waxbarasho ku fiican oo number 1 markasta istaagaya